أنا هرت حديل هاي عادي هذا أمهسنتهين وأمهد علينا لما أنت هذا أنت دعاء يوكبتي أنت قرب وما أنت خرج يوكبتي أنت بودعينا وأنا مهتين إنه إله وحقوق بريا جنة وحجنة وحكي في عن مجرته ما دام أنا قبل عرض إيتهاي أو هذا حالك يسامحي واي oo igu garab istaageen oo isbitaalka ilaa hadda wixii daawadeedii cunaysa xataa oo maanta dad walaalahay igu caawiyeen inta dhimanna kale inay caawi doonaan waa ka rajeynaya intaas in ka badan oo sugaya ilaahay ha wajisay dhamaantood habeenkii marar badan waa soo kacdaa inta badan habeenkii waa soo jeedaa ayadoo oynayso ayadoo ma aragtay habeenkii ma aragtay sidaas u soo kacdaa anagana waa ku dhafarnaaba ma aragtay maalinkii xataa hordadeeda ma badno كورن داوده هدي ilmaha aad dhashay oo ka xanuunsan yahay isla markaana aadan waxba u hayn oo habeenkii oo idil oo ilmahaasi soo jeedo dabcan waad soo jeedaysaa maalinkii si la mid ah hadduu sidaas oo kalena soo jeedo dabcan hurdo waa aad ka tagaysaa qoyskan Soomaaliyeed walaalkeen Abuukar Culusow iyo xaaskiisa Samiira arinkaasi ayaa haysta waa dareemi kartaa aabba Soomaaliyeed hooyo Soomaaliyeed oo dabcan habeen iyo maalinba ay isku si u tahay marka koowaad waxaan idinkaga mahadcelinaynaa sida weyn aad u garab istaagteen waxaana idin xasuusinaynaa in wali garab istaagiina loo baahan yahay maadaama qoyskani Soomaaliyeed ay u baahan yihiin in aad si wanaagsan u soo caawisaan si ay gabadhooda afnaan ee caafimaad taama uu Alla u siiyo marka labaad waxaan idinka codsanaynaa daawadayaal muuqaalkan inaad bulsho badan gaarsiisaan si qoyskani loo soo caawiyo dabcan walaalkeen Abuukar Culusow iyo xaaskiisa Samiira waxaad ugu barateen wanaag farxad madadaalo iyo qosol balse marka ay la soo darseen xaaladan gabadhooda xanuunsan dabcan intiiba waa ay ka tageen Abuukar soo dhow saaxiib marka koowaad xaaladdu imika waa sidee maxaa isbedelay والله هرت هذا ما سنتباشي ومرك لبعض أو عاد ما عرفت نصاب بقطه مركنا معها إسبتالك الحمد لله هذا واحد نصاب بقطي جورجين إن هرت ضدك سيد أوجين أديها أوجين أنا قردن أوجين وحي نحلين كسيدك دقة جبدة أمرته لكن ما يدعن واقرت وحنا كل ويسي جبدة وحكوسوا بحي حنون كله كاسو عن سامحين إن جبدة قبل الوسمية بارتان كذا ومقنع ولا جباري حنون كوسوا بحي ما ماذا إنه شرح دونتو لكن حنون كاس بارتان كيسا مقنع وحد عضي أنا جو قليل ديار سن أو لدها يبرد لبصع ولا قلة جبدة ويقدم بيه ما عرفت على دكتور كي ماذا وحاولي waxaan kana soo baxay gabadha waa in dib loo dhigaa qalinkeeda waa in daawooyin ay qaadataa marka arintaas ay u jirtay sida isku ogeyn qalinkii laakiin qalinku waa sidiisa oo gabadha qalin ma hurto waay qasab waay qalin marka xanuunkan soo baxay oo dhaqaatiirta idin sheegan waa maxay waxa waaye TB waa gartay TB da fiiraha ka soo baxay gabadha marka waxa la yiri gabadhan haddii mar ay qabto xanuunkaas قليل ما صورت جليس وإن على 2 weeks إلى 4 weeks داوين كتير شيء قاعدة داوده كدبنا قليل كلفوا ليها واقرتي مركا وقت واحد كده ميها وركاس صباح بتاعك عبارة كدرنا مركز قبدي أكسجين كوا ودي بقى وجد هذا حتى مركا مدة مركا بتاعك كصوب مركا بتاعك وعم أصلا إن كصوب إحنا صوبته ما دام اللي يري دوين كهقالته أفروي كده قليل كله سمينا وده صوب وسي جرنا بتاعك ملها ملها صح العجب بدلنا ويدنا كصوب العجب بدلنا وسعنين مركا وحن وصوب قدنا وحول بولا ومرمان أها الهراء وصوب قدني مركا سي معرتي جبنا أي وقعت مرحلة ده معرض قلينك واقرت طبعا إمك الدواوين أيها قبل سيسان والدواوين تي بشدة حنونكي هاي خاطرته طبعا مدام إيدين شيئا إمك لما قال لك رأيين إلا الدواوين كاس استعمال تي بشدة حدا حالته قبل الواسط يا سيدي هو مكرون تاعي والله حالته سيدي إيهاد مركي هوري أكسجين أو كلية الحمد لله حقوق سيدي وكرونتها لكن انت كلا هبينك ما صيحته واقرت وحواي
xanuunkan hadda waa la qalala leeyahay wuxuu leeyahay xanuun ma aha in oo maaragtay ay okay noqonayso ilaa qaliinka ay ka gaarayso habeenkii marar badan waa soo kacdaa inta badan habeenkii waa soo jeedaa iyadoo oynayso iyadoo maaragtay habeenkii ay maaragtay sidaas u soo kacdaa annagana waa ku dhafarnaaba maaragtay maalinkii xataa hordadeeda ma badno shalaydaana ugu dambaysa dhakhtaraa geeni maanta ugu dambaysa waa geeni maalin walba waa geeni waa geenina taada kale kaliya waxaan laga qalay ma hayo allergy qabtaa waxyaalo badan maaragtay isku hayo ilaahay caafiyo dabcan daawadayaal sida aad u jeedaan qoyskan gabadhan yarta ee Afnaan ayaa muddoba ka xanuunsaneed sida muuqaaladii hore aad ku daawateenba garab istaagiina marka koowaad waa idinkaga mahadcelinayna sida wanaagsan aad u garab istaagteen walina waa loo baahan yahay garab istaagiina dabcan waa dareemi kartaa waalidka markuu ku xanuunsan yahay ilmo yar habeenkiina aan seexanaynin maalinkiina sidoo kale soo jeedaya waa dareemi kartaan xanuunka ay la eg tahay sidoo kale daawadayaashana daawanaya waxaan si sharaf leh ugu codsanaynaa in muuqaalka meelo badan ay gaarsiiyaan oo ay sii sheegarayaan haddii muuqaalkan aad sii sheegarayso meelo kale aad gaarsiisid waxaa arkaya qof muxsin ah oo dabcan doonaya inuu caawiyo qoyskan waadna ku mahadsantihiin Samira bal iminka gabadha xaaladeeda waa sidee horta aad mahadsan tahay adiga iyo asxaabta dhamaantiin wada mahadsan tihiin alxamdulillah horta sidii hore oxygenkii isbitaalkii ajiifna maanta ma joogno maanta alxamdulillah gurigeena joogna laakiin still daawooyinkii aa weli siiyaa alxamdulillah hurda caafimaadkana kiskis waa insha allah iyo caafimaad doonta hadda daawadii oo TB-da u socoto qaliinkan insha allah sida asxaabtan waa la wadaagay janaalka geliyay inaa hindi oo u qaada jeclahay caafimaadka ilaa meel walba ku sii karaa laakiin ani hooyo ahaan waxa jeclaa inaa hindi ku soo daaweeyo hadda baasaboorkii waa inaa fiisiya ku xareeyo maadaama ay baasaboor iyo dhalashii haddii ku raadiyay noqoto inta ali oo 4 isbuuc isticmaalis daawada ama 3 isbuuc xareeyna baasaboor oo xareeyo oo dhalashadeedana hadda waa sugaya insha Allah inaa hindi u qaado dabcan wadadeedana sidii Abuukar sheegay waa yaani habeenkii way iska hooya ah kale ma ka daalayo ilaahay ay caafiyo insha Allah caafimaad sariica ilaahay ugu barya asxaabta iyo soo duceysin oo maanta garab iyo ducaba isiis intaba aad iyo aad ugu mahadsanyihiin insha Allah khayr rajaa dabcan bulsho badan ayaa idin la soo xiriirtay isla markaana garab istaag idin muujisay balse marka ay tahay xaalad caafimaad dabcan isbitaaladana waa la iska dareemi karaa kulay qofkii isbitaalo marar badan ku noqdo ayaa dareemi kara waxay sheegtay iminka inaad gabadha rabtid inaad dhanka iyo hindi la geeyo oo qaliinka halkaas ay ku gasho dhaqaatiirta Kenya iyo dhanka qaliinka wax may ka qaban waayeen may wax way ma ka qaban karna igu midhiin horta alxamdulillah horta dhaqaatiirta isbitaalka ku jira horta garab weyn isiyeen way caawiyeen alxamdulillah gabadheedana hadda daawooyin u socdaa inaa isbitaal tago horta liima dhihin wax ma laga qaban karo laakiin hooyo ahaan ani ahaanteeda waxaa jeclaada maadaama meel walba ay ka kala fiican yihiin inaa hindi geeyo waa gartay fahmino yani meeshaas ani qalbigeyga ilaahay meel walba ku caafi karaa sida hore idinku sheegay asxaabtana oo sheegay adina hadda ku sheegay laakiin ani hooyo ahaan waxaa jeclaa inaa hindi geeyo oo meeshii ilaahay caafimaadkeedan ilaahay og laakiin ilaahay waxa ugu baryaa inay caafimaad meeshaas ku soo heli doonto qaliinkeeda iyadoo sida family aniga gabadheeda u baxno ilaahay anagoo wada jir hadana uu soo celiyo gurigeena ka waran bal habeenkii markay gabadha xanuunka uu soo kiciyo isla markaa ay seexan weyso maxaa dareentaa maalinkiina sidoo kale aad la soo jeedin horta alxamdulillah dhahaa markuu horeyso afnaan shalay ilaahay isiiyey xanuunkan inoo ilaahay caafimaad buu sii karaa laakiin imtixaan inaa igu socoto oo imtixaan tahay dareema mar walbana alxamdulillah dhahaa inta hadday seexatana waa la seexdaa hadday soo kacdana waa la soo kacaa hadday jiiftana inaa ilaaliyo ku qasbanahay because qandhadeeda zaa'id markoo noqdo xaliidha dhaqaatiirtu waxay dhaheen qalal ku dhici karo waa inaa kontroola hadday qandho qabato iyadoo hurdayso ama siboosta asiya ama sharoobadeeda asiina baaristan cusub ee gabadha in laga helay TB-sho dhaqaatiirtana ay sheegeen in aan xilli xaadirkan la qali karin ilaa daawooyinkaas ee TB-shada ay qaadato ka waran bal والله الحمد لله ما أنت داود إن سد أفر إن أفر وايد داود أنت أفر معلومة أنت استعماله سو عاف ما تكن كسكسو إن شاء الله هرجنا
inay igu caafimaado midka kale tinexia lahaa midka oo reflexiga caloosha loo siiyaa daawadaas siisiyaa waxta bulsho badan idin daawanaysa isla markaana idin ku taxan oo idin kaga bartay madadaalo iyo sidoo kale farxad bulshadaas maxaa sheegi lahayd horta waxaa dhihi lahaa aad iyo aad u mahadsantihiin oo u mahadcelinaya dhammaantooda inta ducada igu kabtay intii garab oo maanta qarash igu kabtay intaba u duceynaya waana mahadsiin ilaahay waxaa ugu baryaa janno jannadu wax ka fiican ma jirto maadaama anoo gabadheeda curud ii tahay oo haddana xaalkii ii saamixi waayey oo igu garab istaageen oo isbitaalka ilaa hadda wixii daawadeeda cunaysa xataa oo maanta dad walaalahay igu caawiyeen inta dhimanna kale inay caawi doonaan waa ka rajeynaya intaas in ka badan oo sugaya ilaahay ha u wadajiyo dhammaantood waa tahay daawadayaal markooda waxaan kaga mahad celinaynaa waqtigiina qaaliga aadna siiseen oo muuqaalkan ku daawanaysaan gabagabadii muuqaalkan aynu isla soo gaarnay runtii sadaqada yaraan ma lahan waxyaabo badan ayay sadaqada ay ku fiican tahay waxay baabi'isaa faqriga waxay baabi'isaa xumaanta runtii maalintii yawmul qiyaamana wax weyn ayay ku taraysaa qoyskan sidaan horeyba idinkugu sheegay waxaad ugu barateen farxad balse waayihii dambe oo ay gabadha ka xanuunsatay waa dareemi kartaan farxaddii iyo madadaaladii ma jirto maadaama ilmo yar uu ka xanuunsan yahay abukar mar kale soo dhowo saaxiib bulsho badanaa ku daawanaysa maxaa u sheegi lahayd waan dhowahay horta afnaan dad fara badanaa hadda maanta bartay waxaa jira xataa dad oo anaga aan aqoon noo lahayn oo afnaan ahaan noo soo xiriiriyey maaragta mar walba jecel inay xaaladeeda oo la socdaan horta gabadhan ilaaha shala abuurtay ilaahana maaragtay caafimaad siin kara annagu waxaa leenahay inaan dadaalno asxaabteenna soomaali weyn waxaan weydiisan garab runtii intiina siisane khayr allah siiyo janno allah ugu bedelo intana siin doontana ilaahay sidaasoo kaleeto khayr allah ugu bedelo gabadhan hadda hooyadeed waxay go-aan ku gaartay sida kuu sheegtay inay hindiga geyso hadday qaliin noqoto meesha ay ku qasho hadday dawooyin kale ay noqoto meesha si dawooyinkeeda ay ku qaadato marka waa dareemi kartaa hooyo layidhi canugaaga waa la kala qalaa waxa waaye sidaana la yeelaa waxaa lagu sameeyaa waa aad u naxee marka waxa waaye waxaan leenahay soomaali maxamed intii wax nagu sadaqaysatane allah ka abaalmariyo inta hadda maaragtay jecel inay maaragtay welina garab istaagtane maadaama arrinta ay ilaa iyo maaragtay gaartay inaan gabadha wadno waxa waaye waxaan leenahay soo dhawaada khayr allah idin siiyo aad iyo aadaan u mahadsantihiin waata bulsho badan waxaa jiro jecel in ay dabcan idinla soo xiriiraan oo waxa ay markaas idinku soo daqaysanayaan meel ay idinku soo diraan bulshadaas maxaa u sheegi lahayd wallahi horta kala hore nambarkayga baa sheegay soo maaha haddana nambarkayga koley dad fara badan ahaayo maaragtay maasha allah haddana waan sheegayaa waa 254791665392 waxa waaye kaas nambarkayga iskale kan samiirana waxa waaye 2547224291 waa garta maxaa soo baxay marka lambaradaas 2291 kaafi cali maxamed kaas ku soo baxay kayga horena magacayga waa abukar maxamed axmed markaas sadaqada iyo ficilka khayraadka la sameeyo iyo sadaqada oo badan oo la bixiyo qalbigay dejisaa walwalka iyo walbahaarka iyo murugta qofka ka saarta umuurihiisa oo dhan baa ilaahay u fududeeyaa markaas uu wixiyaa qof bashaash ah oo faraxsan maalinta aa wax la baxdid iyo maalinta aadan la bixin iskugu kaamid ma aha qalbigaaga maalinta aa wax la baxdid oo la baxdid farxad iyo nimco iyo waasicnimo ayaad ka dareemaysaa waa haddaad tahay qof sadaqada qiimaha ay leedahay ilaahay agtiisa rumaysan wey